السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جنالك مركلة سودة وهذا أدي هذا وما سنتهين وأديكم هذا علينا أصحابتي جل سعودة يوتيوب كوا فيسبوك بيج جل سعودة يكو لبا تيك توك جل سعودة ما أنت وقميص لبضع بشي كوبي توانات سنة كلبضع كون هي سدح يا لباتنك maalin markii aan soo galiyay hooyo Soomaaliyeed oo wiilkeeda oo dhibaato loo geystay ama la dilay ka hadlaysa waxa ay la soo xiriiray hooyooyin kala duwan oo gobollo kala duwan ee wadanka Mareykanka jooga kuwaasi oo ka cabanaya dhibaatooyin caruurtooda loo geystay iyo waliba cadaalad darro haysata waxa kamid ah hooyadan hadda qadka ku jirta oo gobolka Minnesota igala soo xiriirtay oo magaceeda la yiraahdo Xabiiba Hurre waxa ay ka cabanayso iyo bal caawinaada ay uga baahan tahay dadka Soomaaliyeed ee guud ahaan Mareykanka ku dhaqan gaar ahaan kuwa Minneapolis ku dhaqan ayaa raba inaan idin la wadaago hooyo Xabiiba soo dhaw bal waxaad warbixin iga siisaa wiilkaada xilliga ay dhibaatadu gaartay iyo sida ay u gaartay wiilkayga dhibaatada waxay gaadhay August 23 2022 oo waa san bishii 8aad ee sanadkii hore ee dhamaaday ee 2022 marka sanad ka badan ayaa hadda ka soo wareegtay sidee wax u gaareen marka wiilkayga maskaxda ayaa abar dhimatay hataa oo sidii koomaha ugu jira maxaa sababay marka in maskaxdiisu ay dhimatay wiilkaada waxa sababay maxay ahaayeen anaga hal maalin iyo habeen iyo maalin markay ka soo wareegtay ayaa naloo sheegay in wiilkayga la qalay oo isbitaalka uu yaalo oo maaragtay gaari baa dilay baa naliir hatta nalooma soo sheegin markii la qalayay albaabku booliis ugu soo garaaco yiri wiilkaaga laba bari ka hor buu gaari dilay isbitaalku yaala waana la qalay hadee go'aanka idinka gaar lahaa inaad tubooyinka ka bixin lahaydeen iyo inaad haysan lahaydeen marka macnaheedu waxay tahay life support ayuu ku jiraa oo qalab ayaa ku xiran marka ayada life support ku jira hadda baata waa gartay marka halka ay wax ku gaareen iyo sida ay wax u gaareen gaariga ku dhacay ma gaari shacab oo ahaa ma gaari booliis oo ahaa yaa watay waxyaabahaas oo idil informationka boolisku idima siinin miya lama siinin waxaana report aan doonay aan soo qaaday waxay dhaheen gaari Honda ah oo cad baa ku dhacday laakiin waxa information oo kale ma siinay meesha ay kula dhacday marka ma aysan idin sheegin ma wada ahayd ma meel buu taagnaa ma socday ma haysan information kaasi oo idin jidku goynayay wadadu goynayay waata wadada meel sharci ah laga gooyay ayaa jirta iyo meel sharci darro ah ma ogtihiin inuu meel sharci ah ka goynayay inuu meel sharci darro ah ka goynayay maya wax waxaan ka haynaa ma jirto intaas kuma qorin reportka kuma ayna qorin waxay ku qoreen wadada inuu goynay maanta wiilkaadu marka ma adigu kula joogay markii dhibaatadaasi ku dhacaysay mise meel uu kaligii deganaa anuu ila joogay marka ayada waa imise jir wiilkaadu 33 buu jiraa waa 33 sano xagee degan tahay adigu degan ahaan Mareykanka Minnesota ka xagee Edinburgh meel liraa tuula Edinburgh marka wiilka wax ka dhacayna waa Minneapolis marka laba maalin kadib ayaad ogaatay miya wiilkaada in dhibaatadu gaartay oo xitaa wax xiriir labadaasi maalin meel uu ku sugan yahay inuu dhinto inuu nool yahay ma aadan ka war haynin asna hoonka ku jiro oo senior house ku jiro ayuu caawin jiray aabahana aabaan mar hore kala tagnay uu ahaa uu caawin jiray uu soo caawin jiray soo guriga joogo ayuu soo waco yiri adeeg wax baan u baahnahay imaa markaas uu barqaatay oo aaday marka aabihiisu adeegaas u qaaday markaas kugu war dambeysay marka adiga asagoo caafimaad qabo markaas ay ugu dambeysay yani ano waa masaxday ba asagoo hoos jooga ay ugu dambeysay oo hoos TV ka daawanay isbitaalkii marka tagteen maxaad la kulanteen marka uu booliska idin yimid oo wiilkiin isbitaalkaasi ayuu ku jiraa waxaan la kulanay wiilkii oo maskaxdiisa kala bar intiisa loo kala dhambalay oo la bixiyay kala barka hadda intii la kala dhambalay la bixiyay frinjeerka la geliyay miskaxdii ay soo buuran tahay oo banaanka ay tahay waa garta oo qalliinkaasi lagu sameeyay marka waxaad ii sheegtay wiilka madaxiisa oo kaliya inay dhibaatadaasi ku taalo oo jirkiisa inta kale aysan wax dhibaato aysan ku oolin marun baa arinta wax korkiisa aan ku aragnay haba yaraatee ma jirto oo injir ah oo aan aragnay
marka maskaxdiisa waxaad ii sheegtay in inta laga saaray fridge la geliyay adinku maskaxda ma aragteen mise waa la idin sheegay oo kaliya meesha ay ku jirto maya waa aragnay maskax oo waxa la leeyahay marka dhibaatada loo saar sababta loo saaray maxay tahay maskaxda looga bixiyay maskaxdiisa ayaa soo bararaysay intaan ka bixinayna waa isku jajabtay sidaa darteed baan u bixinay marka muddo sanad ah ayuu isbitaalka ku jiraa wiilku marka koma ayuu ku jiraa hadal ma lahan cuntana ma lahan miya cuntada maxaa lagu siiyaa caloosha caana kaga jira ayaa tub waa isbitaalka uu ku jiro wiilka hadda wuxuu ku jiraa rehab rehab ku jiraa hadda waa laga bixiyey isbitaalkii asagoo sidiisii koomada ugu jiraa laga bixiyey marka isbitaalku ku jiray waxaa weeye isbitaallo badan buu galay waxaa memorial hospital meel la yidhaahdo waa tahay marka qarashaadka ku baxaya intaasi yaa kaa caawinaya isbitaalladaasi kala duwan oo la geynayo waxaan ognahay qof qalliin lagu sameeyo maskaxdii laga bixiyey inay qarash badan tahay ma insurance caymis uu ku jiray oo ka bixinayay sidee arrintaasi ku dhacday dawladda unbaa hadda naga caawisay insurance kolle waraaqa waa idinka goynay lacagtaasaan kugu leenahay intaasaan kugu leenahay kolbay wayna dhahaan laakiin hadda ayagoon baa naga bixinaya mata waxaa ii sheegtay marka boolisku markii ay ku yimaadeen kadib inay number ku siiyeen ay ku yiraahdeen numberkaasi la xiriir dhowr jeerna aad wacday oo lagaa qaban waayay numberkaasi ma number boolisa muxuu yahay numberkaasi numberka waa ninka qoladii habeenkii meesha ambalaasta ay timid ay sheegeen ka qaaday meesha oo investigator la yiraahdo investigator askartii markaa joogtay meesha ayaa la xiriir lagu yiri marka numberkiina ma lagaa qabanayo ma lama qabanayo numberka lama qabanayo marka wax warbixina kama haysid gaariga ku dhacay qofka watay iyo qaladka yaa lahaa iyo waxaas oo idil wax wara kama haysid adiga ma arrintaasi marka wax loo yaray oo qareen ah ma raadsatay oo arrintaasi dabagal ku sameeya wiilkaada in laga qaldanaa in isagu wadada meel qaldan uu ka goynayay wax qareena ma la xiriirtay maya wax qareen oo la xiriiray ma jirto ninkan hadda reportkiisa taxi message-adii waxaan u diray hataa kuu soo diri karaa kan state-ka haystee muslimka attorney-ga la yiraahdo baan office-kiisa tagay ma arki kartid baa la yiri muxuu ahaa waa taxi message-aan u diray waa Keith Allison waa gartay xeraliyaha guud ee gobolka Minnesota waay taxi message igu soo celiyo wuxuu yiri ninka aniga office-kayga fadhiya la soo xiriir waan la xiriirnaa aniga wiil kale wax jawaab ah oo haddana call igu soo celiyayna ma arkin wax kale oo la xiriiray ma jirto tabartayda aan ku qabsanayo lawyer aan ku qabsadana lawyer lacagtiisa ma yaro tabar markaa u waayo waa faashib askar marka wiilkaadu ma kaligii buu kugu yahay mise caruur kale ayaa dhashaa jooga kaligii uma aha caruur kale aan dhalo oo waxay qaar ba Afrika jira qaarna way joogaan marka Soomaalida maadaama gobolka Minnesota gobolka ugu badan ee Soomaalidu ay tahay Soomaalida wadankan joogta iyadoo Soomaali la waday hadana qaab qabiil ayaa la isku raadiyaa oo Soomaalida ma raadisay arrintan ma ku wargelisay oo ma u sheegto tiri arrintan ha laga caawiyo ma ku tiri maya ha laga caawiyo ma dhihin waa gartay maxaa dhacay marka oo Soomaalida arrintan u gaarsiin waysay maadaama dhibaatadan wiilkaadi muddo ka badan sanad uu ku jiro isbitaal wallahi waxa inta badan way wada og yihiin waxa taa isbitaalka igu yimid oo igu soo salaamay ma arkin muxuu ahaa waa uu iga seexday anoo wasida la iga seexday ma garanayo laakiin waa la iga seexday marka maxaad dalbanaysaa maxaa hadda Soomaalida ka dalbanaysaa marka arrintaada Soomaali fara badan ayuu muuqaalkan gaari doonaa oo arki doonta wiilkaadii wili koma ayuu ku jiraa dhibaatadu siday u gaartay wax war cad kama haysid maxaad Soomaalida ka dalbanaysaa marka hadda waxaan ka dalbanayaa Soomaalida inay lawyer iyo qabtaan lawyer wiilkayga arrintiisa ka sal gaaray inay qabtaan inay taqaatirta dileen waxaan ku tuhunsanahay waliba oo ku tuhunsanahay ama booliiska ama oo diiday inay arrintiisa koolka naga qabtaan ama muxuu ahaay isbitaalkii labadaa mid baan ku tuhunsanahay waa inay arrinteeda wax la iga qabtaan rabaa marka waa wiilkaadu hadda wax hadala ma lahan muddo sanad ah waa qof iska yaala oo maskaxdiisii aysan ku jirin oo maskaxdiisii asaga laba meel ay ku kala jiraan horta waan ku kala dhaafay maskaxdii frinjeerka ku jirtay baashii frinjeerka ku jirtay ee lafti ahayd ee baadhigii laga gooyay ahaa haddana muddo markaan anaga aan dhahnay waa maskaxdiisa asaa u gasheen way jajabtay intayna dhaheen haddana mar labaad bay ku soo celiyeen waa gartay oo way ku dhajiyeen waa imise bilood ka hor xilliga ay ku soo celinayaan
waxaa kasoo wareegtay maya hal bil baa kasoo wareegtay markay ku celiyeen marka hore waxayna dhaheen wayba jabtay baashaasoo mushdaanya isku noqotay wax markii lagu soo celiyeen baadhii lagu soo celiyay asaga uu iska lahaa wax mushdaanyo ay ahayd ma jirto way fiicneed hay markii lagu soo celiyay kadib wiilkii wax dhaqdhaqaaqa ma leeyahay marka oo mase komo ku jira waa sidee xaaladiisa hadii maskaxdiisa lagu soo celiyay komo ku jira maskaxdiisa dhimatay ku leeyahay waa komo ku jira waa gartay laakiin waa naftu waa ku jirtaa laakiin hadalna ma lahan cuntadana caloosha laga siiyaa dhinaca midigta ana waa eberkiis oo isha waad aragtay wuu kala qaadayaa oo sawirkiisa kuu soo diray laakiin indho oo wax lagu arkaayo ma aha oo waa gartay isha hoose midigta ama kala qaadayo wax yam oo kala qaadi laakiin way isku dunsan tahay tan kale uu kala qaadaya aad aragtayna haddii aad farta saa u gelinaysa hataa ma arkaayo oo wax dareen ah ma lahan may waa tahay maama aad haddii la taabto lagu soo laabaya lugaha unbuu ka dhaqdhaqaaqayaa waa tahay maama aad iyo aad u mahadsan tahay dhammaan soomaalida Mareykanka ku dhaqan gaar ahaan kuwa Minneapolis hooyo xabiibo nambarkeeda halkan ayaan soo saari doonaa waxaan idinka codsanayaa inaad caawisaan oo aad garab istaagtaan hooyadan caawinaad iyo cadaalad inay hesho ay u baahan tahay maadaama dhibaatada wiilkeeda gaartay hadda muddo sanad ah ay ka soo wareegatay walina aysan ogeyn sida ay wax u gaareen iyo sidoo kalena aysan u suura gelin ama aysan awood u lahayn in qareen kiiskeeda dabagal ku sameeya ay lacag ay ku qabsatay aysan haynin aad iyo aad u mahadsantiin maama aad u mahadsantahay haye cilmiyo haye salaam calaykum